barnaamijkana barnaamijka caawa ee dooda waxaanu ku eegi doonaa isbeddelka cimilada dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaana talaadadii waxa uu sheegay in uu marti galinayo oo uu ku boorinayo adduunka in ay ka soo wada qayb galaan kulanka isbeddelka cimilada markaasi 2019 sanadka soo socda si ay u sharaxaan qorshahooda ku aadan xaaladaha ba'an ee cimilada mustaqbalka nagu soo fool leh. Haddaba dalka Soomaaliya dhaqaaluhu waa mid u jilicsan cimilada ama si toos ah ugu xiran xoolaha nool iyo beeraha maadaama aanay jirin warshado iyo wax soo saar kale oo xoogan. Haddaba saameyn intee leeg ayaa isbeddelada cimiladu ay ku yeelan karaan dhaqaalaha iyo dadka Soomaaliyeed? waa qodobka dooda caawa aanu ku eegi doono. waxaana dooda nagala qayb galaya Ayaan Maxamed oo nooga soo biiraysa dhinaca magaalada Gloucester ee wadankan Ingiriiska ku taala, iyo waxaa sidoo kale asna barnaamijka nagala qayb galaya oo goordhow nagu soo biiri doona Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo arrimaha deegaanka ka faalooda. marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa su'aasha Ayaan, waxaad samaysay barnaamij lagu magac daray geed abuur rajo abuur, bal nooga waran waxa uu higsigiisu yahay. walaalow mahadsan tahay Farxaan. barnaamijka geed beer rajo beer waa barnaamij aan ahayn macaashdoon kana madax bannaan siyaasad iyo dhammaan afakaaraha aan ahayn arrimaha deegaanka. waxaana laga aasaasay dalka Somaliland bishii January ee sanadkii 2017ka. macnaha ugu weyn aan u aasaasnay barnaamijka waxa weeyaan in aanu ka la beero dhir kala duwan si looga qayb qaato dadaalada loogu ilaalinayo deegaanka laguna kobcinayo dhirta. maadaama aad ogtahay imaka wadamada Somaliland iyo wadamada Soomaaliyeed imaka waxa ugu daran ay ka cawadaan waxa weeyaan dhirtii oo daba go'day. marka ololahan waxaa hormuud ka ah dhalinyaro isxilqaantay oo kala degan wadamada Ingiriiska iyo wadamada Sweden, sidoo kale wadamadii Afrika ay wada joogaan. waan gartay maadaama marka dhalinyaro isxilqaantay oo waliba hadda sida adiga sheegayso qurbaha aad joogtid oo wadankii aad dadaalkaas ka wadaan, maxaa ilaa hadda la taaban karo oo idin suurta galay oo miro dhal ah? waxaan noo suurta galay waxa weeyaan inaan xiriir la samaysanay madaxweynaha Somaliland iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed oo dhan inaanu mid kastaba ku dhiirigelinay inay la imaadaan barnaamijka dhirta. sidoo kale inuu hirgashay barnaamijka dhirta ee Somaliland ay qabanayso madaxweynuhu ku dhaqaaqay. midda kalena waxa weeyaan in marka 2,000 oo geed in ka badan la beeray wadanka Somaliland laguna faafinayo wadamada Afrikada oo dhan. waxaan kaloo bilownay challenge ah in qof kasto ama xaflad leh qalin jabin ama xaflad mahar inuu qof kastaaba uu xasuus u dhigto oo uu beero geed oo hadhowto la arki doono intii sano ka dambeysay maalinta uu beeray geedka ay farxadii ka dambeysay. marka imaka lamaanaha oo dhan markay isguursadaan badanaa waxay beeraan geed si looga yaqaanay dhaqankeeni berigii hore ee lagu yaqaanay magaalada Gabiley inay wadooyinka Gabiley agteeda laga beero geed. waa arrin aad u wanaagsan. mas'uuliyiintiina waad kala hadlaysaan, bulshadana waxaad ku dhiirigelinaysaan in xitaa labadiis aroosaya laba geed ay sameeyaan, waa wax lagu farxo Ayaan. laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad dadaalkaas ku jirtaan, maxaa aad is leedahay dhibaatada hadda jirtay adinku aad aragteen ee dadkii wadanka gudihiisa joogay aysan arkin ee adinku aad aragteen ay saameynta keentay geed la'aanta maxay tahay hadda dadka u fasirto? waxa weeyaan dhirtii imika waxay ku xiran tahay carrada aynu ku noolahay. carrada wadankeena iyo wadamada Afrika waxa weeyaan carro loogu talagalay inay noqoto saxaro kaliyaata. maadaama ay tahay wadan saxaro loogu talagalay, waxaan aragnay inay soo noqnoqonayso cimilo isbedelkan sidii baryihii dhaweetoole droughtskii ku dhacay wadanka Somaliland. marka imika marka maxay ahaydey waxaanu iska daynay in aanu ilaalino dhirta. waan gartay. marka deegaankii maadaama aad dadaal markaad samaynaysaan, goordhow waxaan ugu soo biiri doonaa saan filayo cilad farsamo ayaana haysata Dr. Cabdulaahi oo magaalada wadanka Sweden qadka noogu jiro. marka xilligan hadda marka la joogo oo adduunidii ay wada qaylinayso oo la leeyahay isbeddelkii cimilada dhibaatooyin badan ku haya dunida,
dadkii Soomaaliyeedna dhibaato weyn ay ku haysato abaartu mar walba ay soo noqnoqonayso oo biyo la'aantii ay jirto wax kale oo aan ahayn inaad dhir beertaan moogiye ma jiraan oo as leedihiin deegaanka waa lagu badbaadin karaa imaka anagu waxaan isku xilqaanay inaan xooga saarno dhirta iyo cimilada dhirta siday cimilada doorsoonka iyo abaarahan soo noqnoqonaya aan uga raysano marka annaga ahaan horta imika xooga waxaanu saarnay inaynu geedadkaas iyo dhirta aanu beerno laakiin way jirtaa dhalinyaro kala duwan oo qof kastaaba isku xilqaamay wax kala duwan iyo xirfado kala duwan waan gartay marka dhibaatooyin kale oo fara badan ayaa jira oo dadka qaarkii waxay leeyihiin xitaa deegaankii kaliya maaha laakiin xoolihii bay saamaysay waxa la leeyahay bacahan hadda aadka loo isticmaalo kale adigu hadda UK baad joogtaa waad ogtahay in bacdii xitaa dukaamadii lacag laga dhigay si deegaankii loo ilaaliyo taama isku daydeen inaad ayadana aad ku dadaashaan annaga maadaama imika aan ku bilownay dhirta waxaan isleenahay in xoolaha aanu badbaadin karno si ay u cunaan wax nafaqo leh oo maxay hayday ay u heli karaan haddaaba abaaro dambe dhacay lahayn uguma keene si ay wax ay ku badbaadaan ay u heli karaan oo at least la heli karo dhir ayagii naftooda iyagii lagu badbaadin karo laakiin imika way noogu jirtaa talada anaga way noogu jirtaa inaan sanadkan dambe soo socdo aanu spread garoono oon meelo kala gaadhno oon waxyaabo kala duwan aanu qabanno waan gartay waxaan ka xunahay in ayaan barnaamijka uu nagala qayb gali lahaa isna dhakhtar ku takhasusay arrimahan deegaanka oo cimilada noo sharaxi lahaa oo barnaamijka hadda nagala qayb galayn marka su'aalihii baan kugu badinay waxa marka hadda aad hiigsanaysaan marka muxuu yahay oo aad rabtaan alla ilahay 5 sano ama dhowr sano kadib dhulkii waxaan rabnaa inay soo baxaan geedahan amaba noloshii dadku wax iska bedesho annaga hiigsigayga weyni waxa weyn inaanu aragno Somaliland oo leh mustaqbal ifaya oo cagaara ah midda kale aan doonaynaa waxa weeyaan Somaliland oo kaliya maaha in Afrikada oo dhan iyo wadamada Soomaalida oo dhan ay gaadho oo imika anagoo kaliya ma wadno Somaliland oo kaliya lagama wado wadamada Soomaaliya iyo sidaan hore kugu sheegay iyo wadanka Djibouti na imika tiimam kale ayaa ka wada muhiimadeedu waxa weeyaan in aana loo tuusan qaaradda Afrika inay tahay qaarad ah deserted oo aana lahayn meel dir cagaaran lahayn marka muhiimadeedu waxa weeyaan inaanu wadanka qaaradda Afrikana soo noolayno kana bilownay wadanka Somaliland waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ayaan oo nagala qayb galaysa barnaamijkaasi inkastoon ka xunnahay Dr. Cabdulaahi oo nogala soo qayb gali lahaa markaasi uu cilad xagga farsamada ah inoo suurta gali weysay halkaas aad naga daawanaysaan waa telefishinka BBC barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka